waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaayo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigno. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar haddii uu muuqaalku ku cajab galiyana sidoo kale like inoo saar. Lagtu waxay naga saacidaysaa in uu gaaro saaxiibo badan muuqaalkeena saaxiibayaal. maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono jilaaga canka ah Baby Doll ama xog ku saabsan waxyaabo uu sii saadaaliyay jilaaga canka ah Baby Doll ama aflaam oo hore ugu sameeyay laakiin markii dambe dunidu ay ictiraaqday ama dunidu ay sameysay. haddaba waa maxay waxyaabaha uu saadaaliyay jilaagan ee haddana markii dambe la arkay. xogtaasi ayaan idin wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal. waata saaxiibayaal haddii aan u guda galno barnaamijkeena ama sheekadeena horta anigu ama inagu maadaama aan muslimiin nahay kama hadlayno waxyaabaha cilmul qeybka laakiin waxaa jira waxyaabo aflaamta lagu sameeyay markii la eego teknolojiyada kale waxyaabaha sidoo kale waxyaabaha culumta kale ama waxyaabaha la barto kale waxyaabaha la iska sii saadaaliyo mustaqbalka ay dhici karaan ayaa jiro laakiin aniga waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waxyaabo uu Baby Doll ku sameeyay aflaam laakiin markii dambe ay dunidu ictiraaqday ama ay sameysay kadib la arkay ayaan rabaa inaan idin wadaago. marka saaxiibayaal aynu kala saarno marka aan leenahay waxyaabo uu sii saadaaliyay anigu kama hadlayno cilmi qeyb laakiin waxyaabo uu aflaam uu ku sameeyay laakiin markii dambe ay dunidu ictiraaqday ama dunidu ay soo saareen ama shirkadooyin ay sameeyeen weeyaan waxa aan ka hadli doono saaxiibayaal. sheekada ugu horeyso ama wax ugu horeeya ee jilaagani uu sameeyay aad kana loola yaabo waxaa kamid ah aaladda loogu magac daray ama aaladda loogu yeero RT-PCR taa oo ah aalad yacni waxyaabaha dadka markuu cudur ku dhaco kale sanka laga geliyo la baaro. aaladana loo isticmaalo hadda sanadihii u dambeeyay markii uu soo ifbaxay cudurka COVID-19 ayaa inta ugu badan la isticmaalaa geedani loogu yeero ama aaladani RT-PCR ta. marka ninka lagu magacaabo Baby Doll aaladan ayuu isticmaalay wuxuuna ku isticmaalay filimka lagu magacaabo Our Bear Hogaya taa oo la jishay jilaaga atrishada caanka ee lagu magacaabo Aishwarya Rai saaxiibayaal. filimkaasi ayuuna ku sameeyay ama lagu arkay asigoo isticmaalaya aaladan lagu yeero RTC ama RT-PCR markii dambena sanadii dambe waatii loo isticmaalay cudurkani in lagu baaro cudurka COVID-19 ama coronavirus saaxiibayaal. sheekada saddexaad ama aaladda labaad aan dhahay waxa weeyaan aaladda loogu yeero earphone-ka ama earphone-ka earbot-ka loogu yeero. Baby Doll ayaa isticmaalay earphone-kani sanadii 2008 ka hor inta aanan la soo ixtiraaqin ama aysan ixtiraaqin shirkadda caanka ee iPhone wuxuuna ku isticmaalay filimkiisa Jamku. dhegahana hadda idiin muuqdo weeyaane waxa uu ku isticmaalay filimkaasi Jamku laakiin sanadahan hadda waad aragtaan oo dadka isticmaala aalad telefoonada iPhone-ka ay markii dambe ama ay soo saartay shirkaddan caanka ah iPhone-ka waxa la yaab noqotay in uu Baby Doll ku isticmaalay dhegahan loogu yeero earbot-ka ama earbot-ka filim loogu magacaabo Jamku ka oo soo baxay ama Jumku ka oo soo baxay sanadii 2008. waxyaabaha saddexaad ama tan saddexaad aan ka hadli doono ee la yaabka noqota waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo Baby Doll ayaa isticmaalay ama noqday jilaagii ugu horeeyay isticmaalay in qaab online ahaan bangi lacag looga jabsado kale wuxuuna ku isticmaalay filimkii caanka ee ajnabiga oo la daawaday sanadii 2001 sida hadda sawirkeeda kaga muuqdaba waa muuqaalka ama filimkani ama sawirkan waxaan ka soo qaatay filimka caanka ajnabiga uu ku sameeyay sheekadaasi ama in online ahaan bangi loo jabsado. marka Baby Doll waa shakhsigii ugu horeeyay ee sameeyay in bangi qaab online ahaan loo jabsado ka hor ma jirin dad sameeyay ama dunidu ma aysan ku fikirayninba in qaab online ahaan ah bangi loo jabsan doono. waa tahay saaxiibayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xogta yareed aan kala wadaagayna jilaaga caanka ah Baby Doll iyo waxyaabihii uu sii saadaaliyay laakiin markii dambe dunida lagu arkay saaxiibayaal. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar haddii aad janaalka cusubtana subscribe inoo saar waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.